culummada Soomaaliyeed ee wadankan Kenya oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Nairobi ayaa waxay kaga hadleen xaaladda magaalada Laascaanood oo dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay dagaalka foolka uu ku dhexmarayay ciidamada Somaliland iyo dadka deegaanka. Culummada ayaa waxay ku baaqeen in colaadda si shuruud la'aan loo joojiyo ayna xilligan diyaar u yihiin inay dhexdhexaadin u sameeyaan dadka walaalaha ee deegaanada ku dagaalamaya. Waxayna sidoo kale culummada ugu baaqeen Somaliland inay ka dulqaadaan ciidamada ay ku dulhayaan magaalada Laascaanood ee caasimadda gobolka Sool. qaar ka mid ah culummada ayaa ugu horeyntii kulanka ka hadlay. Aqliga aad shaqeeyeen islaamnimada aan u noqonna aan iska dhaafna xiisadda iyo xukun jaceylka iyo aniga maartay wax noqonaya inaan istaajinna taa horaan waxba ugu soo weynay faa'iidada la'aanteedina waan ragnay. ummadda Soomaaliyeedna 32 sano ayay dhibaataysan tahay, dhibaato kale hadda inaan ku sii celinna meesha nooma taala. marka waxaan leenahay culimada Soomaaliyeed oo halkaan iskugu imaaday waxay diyaar u yihiin ummadaas walaalahooda wax walba oo la qaban karaan ama gurmad oo gargaar ah ama maxaa la heshiisiin oo dhexdhexaadina oo dhaxdooda la dhexdhexaadiya wax kasta oo uga aadan inay dhaxgalaan oo wax ka qabtaan bay diyaar u yihiin. waana ayaan daro runtii inaan lagu waana qaadan lagu cibro qaadan wixii la soo maray ee dagaalaha ee ahliyaha Soomaaliduna ayada is dhamaynaysa. marka dardaarankan wuxuu yahay aan ku dardaarmayno walaalaha Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan si gaar ah walaalaha ku dagaalamaya Laascaanood in xabadda la joojiyo inayna ogaadaan inuusan jirin qabiil ama koox ama dawlad muquunin karta cid kala muquunin karta waa la kala adkaan karin waa la kala adkaan waayay in la heshiiyo oo walaalnimo lagu wada noolaado. dadku waa daris waaxid waa xigaalo kala guuri maayaan taasaa diintuna sheegaysa oo sharciga aqligu sheegaya. gabagabadii kulanka ayaa warmurtiyeed ka soo baxay shirkan waxa warbaahinta la wadaagay Sheekh Maxamuud Maxamed Shibli. kadib markii aan qaada dhignay xaaladda taagan iyo xurmadda ay leedahay bisha Rajab una falanqaynay si qoto dheer dhibka taagan iyo kaalinta culimada kaga aadan waxaan isla qaadanay qodobada soo socda. kow in si degdeg loo joojiyo dagaalka ka socda Laascaanood kaasoo aan ku banaanayn shariicada islaamka ahna xaaraan iyo dambi. waxaana ku baaqaynaa in la joojiyo duqaymaha lala beegsanayo maatida masaajidda isbitaalada iyo hantida gaarka ah isla markaasna laga qaado ciidamada kor fadhiya magaalada. laba in si degdeg ah labada dhinac u wada fadhiistaan kuna xalliyaan khilaafkooda miiska wada hadalka si waafaqsan shariicada islaamka. saddex waxaan ugu baaqaynaa culimada iyo dhammaan waxgaradka Soomaaliyeed inay u istaagaan inay sulx iyo heshiis dhex dhigaan walaalaha ishaya. waxay culimada Soomaaliyeed ee Kenya diyaar u yihiin inay hormuud ka noqdaan dadaal kasta oo colaadda lagu daminayo sulxina lagu raadinayo. ilaahay baa yidhi wa in taa'ifataani min almu'miniina iqtataluu faaslixuu baynahuma فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين. أفر waxaan ugu baaqaynaa dhinacyada dagaalamaya iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed inay joojiyaan kana waantoobaan hadallada xanafta leh ee sii hurinaya colaadda dadkana sii kala fogeynaya. shan waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dadka Soomaaliyeed guda iyo dibadba inay u gurmadaan dadka dhibku ka soo gaaray dagaalka Laascaanood. lix culimadu waxay magacaabeen guddi ka shaqeeya gurmadka iyo taakulaynta dadka ku dhibaatoobay dagaalka Laascaanood. Saciid Qarafayno Farsal TV Nairobi.